koox aqoon-yahan ah oo la baxay mar kale midnimo oo intooda badan kasoo jeeda jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland ayaa sheegay inay doonayaan in dib ay u mideeyaan Muqdisho iyo Hargeysa. Bayaan uu dhaqdhaqaaqaasi kasoo saaray magaalada London ayay ku sheegeen in ujeedkoodu uu yahay fakar iyo aragti abuur midnimada ku saabsan. Waxayna sheegeen in xubno badan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqooda ay ka shaqeeyaan magaalooyin badan oo Somaliland iyo Soomaaliya ah. Maxamed Baashe Xaaji Xasan, xiriiriyaha dhaqdhaqaaqa mar kale midnimo, ayaa qadka telefoonka ugu waramay wariyaha BBC-da Cabdifataax Ibraahim Cagayare. walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay. mar kale midnimo dhaqdhaqaaqaasi baaqa uu soo saaray waxa uu daahan yahay oo ujeedadiisu tahay in la xoojiyo wadahadallada iyo isku soo dhoweynta ummadda Soomaalida iyo sidii markaasi loo heli lahaa midnimo macna leh oo waxtar labada dhinacba u leh. waxa weeyaan labadii gobol ee 1960 midnimada gaadhay markii ay ka kala xoroobeen gumaystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska, Hargeysa iyo Muqdisho. dhinacyada kale ee Soomaaliduna ay berrito kusoo dhiikan karaan oo lagaga nasan karo wixii dhibaatooyin iyo kacaakuf dagaalo sokeeye iyo dibdhacyo soo waajahay ummadda Soomaalida. ujeedka aad ka leedihiin maxay tahay marka? 30 sannadood sidan iminka ay Soomaalidu ahayd, gaar ahaan labada gobol dadka ku nooli laguma sii jiri karo oo ummadnimadu kuma sii jiri karto marka la eego dhibaatooyinkii waaweynaaye dhacay iyo kuwa iminka labada dhinacba gudahooda ka jira iyo isbedelada waaweyn ee gobolka Geeska Afrika ka ilma roganaya ee ka dhacaya oo ah kuwa u baahan in la helo jiha cusub oo ka duwan wixii 30 sano ee u dambeeyay lagu jiray. waxaad soo hadal qaaday in aad doonaysaan in la wada hadlo. yaa wada hadlaya marka ma xukuumadaha mise shacabka? walaalow anagu xukuumadaha waa taageeraynaa wixii wanaaga ee ay wadaan labaduba iyo wadahadallada ay wadaan. culays baanu ku saaraynaa inay macno u yeelaan oo dedejiyaan, laakiin anagu halkaa uma soconno. xukuumadaha la igmaday baa hawshaasi u taallaa, annaguna waa ku taageeraynaa. laakiin annaga doorka yagu waxa weeyaaney waa fikir iyo aragti abuur ku saabsan jidkaa cusub oo dadka waxaa dhex galay kalsooni darro fara badan, shaki fara badan, kala fogaansho fara badan. doorkii bulshada rayadka iyo xagga hoose inaanu anagu ka shaqayno oo ka dhiirigelino isku soo dhowaanta iyo wax wada yeelashada ummadda weeye dareenka yagu. sidee isugu soo dhoweynaysaan dadka mar haddii aad UK kaga dhawaaqdeen dhaqdhaqaaqan baaqan aad halkaa kasoo diraysaan? walaalow gudihii waanu joognaa oo xubnaha iyaga ugu badani waxay ku sugan yihiin Hargeysa, Muqdishoy joogaan, Burcay joogaan, waxay joogaan waddanka gudihiisii dabcan. dibaddana jaaliyad badan oo saameyn waddanka kule baa joogto waanu joognaa. marka ayaan darrada ugu weyna jirtaa waxa weeye halka noogu qumaneyd in la isugu tagaa ay ahayd waa Hargeysa. Hargeysana lagama ogola fikir ka duwan fikirka halkaa yaal ee ah gooni isutaagu waa muqadas. dood labaadi ma taalo, qofka la yimaadana xabsi baa loo dirayaa. marka si qarsoodiye baanu gudaha uga shaqaynaa oo saliskooda iyo unugyadooda iyo bay leeyihiin hawshooda way wadaan. qadiyadan gooni-goosadka Somaliland muddo 30 sannadood ayay soo socotay. dad badan oo halkaa ku noolna waa ay ku qanacsan yihiin oo waxay arkaan inay faa'iido badan ka heleen. dhanka kalena waxay rumaysan yihiin in midowgii hore ay ku hongoobeen oo dhibaato ay kala kulmeen. horta midnimadu sideedaba shay xun maaha oo midnimadu waa wax wanaagsan, waana halka maanta caalamku u socdo midnimo iyo iskaashi. midnimada 60kii Somaliland oo qurihii kuma hongoobin, Soomaaliya oo dhan baa ku hongowday. ma ahayn dhibaatadu midnimada, waxay ahayd sidii loo maamulay. ma dhibaato kala horseedaysaan marka? maya waxaa la geli karaa midnimo ka duwan tii hore oo nooc kale ah, iyada oo la ballaqayo albaabada fursadaha waaweyn ee dhaqaale, ee shaqo abuur, ee amni, ee difaac, ee siyaasadeed iyo halka maanta caalamku u socdo oo ah waxdad iyo iskaashi si hore loogu maro. Maxamed Baashe, adiga laf ahaantaada waxaad ka mid ahayd dadkii u ololeyn jiray muddada dheer gooni-goosadka Somaliland. waxaan leeyahay jagaad raadsatay, jagadii baad soo weysay, markaas kadib baad barnaamijkan kale bilowday. marka sidee lagu aamini karaa? walaalow anigu ma jirto jago aan doontay, xil aan doontay ma jiro. waa kuteen waa warka suuqa kaasi. laakiin waan la shaqeeyey Somaliland iyo xukuumadihii ka jiriba. tan ugu dambeysay raggii wax ka dhisay baan ahaa. laakiin maskaxda qofku dhagax ma aha meel yuururo oo aan fikir cusub iyo aragti cusub abuuri karin. haddii uu arko sidan lagu socdaa inay khasaare badan keenayso, si ka fudud oo kalena dhinac taalo, wax diidayaa ma jiro in dhinaca loo dhaqaaqo wanaagu yaallo. maxaad igu aaminayaa waxay ku xidhan tahay sida aanu u shaqayniyo waxaanu la nimaadno. maxamedow, muddo dheer baad sheegtay in aad la soo shaqaynaysay xukuumadihii kala gedisnaa ee Somaliland
iyo tan ugu dambaysa weliba ee Muuse Biixi marka intii aad baaq idaacad marsiin lahayd maxaadan iyaga ula fariisan weysay oo warka aad doonaysid ugu sheegi weysay hore ayaanu arrimaha uga daalay oo intaan aanay noqon tan wada hadallada iyo midnimadaba aan la gaadhin ta gudaha ee Somaliland ayaa noo suurtageli weyday inaanu wada fadhiisanno oo ay wax naga dhegaystaan oo albaabada ayay naga xidheen kelitalisnimo darteed arrintan midnimaduna run ahaantii arrin lagama ogol yahay Somaliland gudaheeda in lagaga sheekaysto oo lagaga doodo oo lagu soo qaado suurtagal haatan kama aha doodaasi Maxamed Baashe waxaa gaashaanka u daruuray wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee xukuumadda gooni-isutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland kaas oo sheegay in shacabkooda ay 10 sanadood ee ka hor ay go'aankooda cadeysteen Cabdinaasir Cumar Jaamac oo BBC-da u waramay ayaa dhanka kala sheegay in aanay jirin haba yaraatee cid gudaha Somaliland lagu caburiyo wax midnimo la dhahana aanay ka shaqaynaynin gudaha deegaanadooda wasiir Cabdinaasir ayaa u waramay Cabdifataax Ibraahim Cageere walaaleen deegaanka maan arag laakiin kulley waraysiga aan leeyahay tiiman dhageystay waxay la tahay arrinka midnimadu waa arrin markii hore bilowgiisii ay iska lahaayeen dadka reer jamhuuriyadda Somaliland dadkii bilowga berigaa hore Soomaali jacaylka nagu jiray waxaanu sabqaynay oo aanu sacrifice u samaynay inaanu xornimadeedii iyo dowladnimadeedii aanu ku raadino oo u sabqayno sidii dadkii Soomaaliya ku heli jiray ee waqtiga ku kala noolaa wadamada kala duwan aanu hoggaan ugu noqon lahayn oo loo samayn lahaa balaadan oo reer Soomaaliya si daro sacrifice aanu sameynay iyo dowladnimadeeda aanu dhiibnay wax dheefa iyo wax faa'iido kama aanu helinay iyo halaag iyo baabaanu ka kulansanay alxamdulillah rabbil caalamiin dadka reer Somaliland dib u tashadeen halganaadu adagoo inanka maxamed Baashe xajaasan kamid ahaa raggii ka qayb qaatay oo aan qarsanahay kaalintii uu ku lahaa halganaadii aad u qaraaro dhiig badan iyo nafo badan iyo maal badan ku daatay kadib 1999 reer Somaliland ku shireen magaalada Burco dadka reer Somaliland waxay go'aansadeen inay madaxbannaanidoodii iyo xorriyadoodii luntay ee ay u sabqeeyeen oo u hureen si dowladda dalka Soomaaliya ku hadloo dhan ay ku midaysiin loo dhisi lahaa ay u yeegleelaan ay dib ula soo noqdeen mar labaad bay haddana dadka reer Somaliland 99% u codeeyeen dastuur ay u dhan yihiin oo ay mar labaad ku unkayaan qarnimadooda luntay 1960 watan aad leedahay Maxamed Baashe wuxuu ka mid ahaa dadkii u soo halgamay gooni-goosadka Somaliland marka mar haddii haatan uu leeyahay muddo 30 sanadood kadib wax lama hayo ee midnimadii aan ku laabanno maxaad ku diidaysaa waxaan ku diidayaa waxaan u qirayaa waxa weeyaan qofka haddaanad kaalintiisa sheegin dadnimada iyo qofnimada ayna faraysa inaynu sheegno kaalintii ku lahaa tusaalahan ku siinaya waxa weeye halka uu guusta iyo isagu walbahaarka iyo nololaanta uu ka qabo maanta Somaliland waxaa taladeeda gacanta ku haya dadkii dhashay ama xilligii dadka reer Somaliland ay waajahayeen caqabadihii iyo nafsigii dowladnimadii iyo xorriyaddii ay diideen ilaahay wuxuu ku siiyay maanta inay taladii dadkoodii iyo dalkoodii ay gacanta ku dhigaan inaan maanta ka talinayo dalkeydii iyo dadkeydii xorriyadda ku jooga calankeygaa wax ku bartay boqolaal iyo kumanaan aniga ila midna maanta waxay ku naaloonayaan dowladnimadooda iyo xorriyaddooda maanta ay ku naaloonayaan isaga aragtidiisu waxay tusaysaa un boqolaal isaga ka badan ka aragti badan ka aqoon-yahansan baa walaal marar badan naga taga Soomaaliya oo ka sheekeeya midnimo iyo arrimo noocaas ah waxay ku dambaysaa un walaal sidaad ogtahay in Somaliland dib dambe usoo codsadaan inuu yidhaaho warcasi hana loo fidiyo meel la tagiyo meel la gudoomina maanaa soo arag waxyaabaha uu sheegay Maxamed Baashe waxaa ka mid ah in dadka lagu caburiyo gudaha Somaliland oo aanay ra'yigooda xor u ahayn oo isaga la fahantiisa ra'yigu qabo dad badan oo qaba ay joogaan gudaha marka dadka cadaadiskan ma ka daynaysaan walaaleen cadaadiska inaan da isla qarnaaba fiican dastuurka jamhuuriyadda Somaliland wuxuu si cad u damaanad qaadayaa idinkuna marakatii BBC ahaan xorriyadda qowlka laakiin waxaa jira xorriyaddu waa xorriyad intee leeg weyn waddanka aad ku nooshay maanta tusaale ahaan dad Ingiriiska joogto haddii aad tiraahdo waddanka Ingiriiska waxaan doonayaa inaan waddanka Cameroon la yidhaahdo ku daro xorriyad maaha idina kaa yeelinayso sovereignty-ga dalku waa lama taabtaan qadiyadda jamhuuriyadda Somaliland waa go'aan shacbi qof iyo laba iyo saddex jid ka horumarin karta ama wax ka bedeli kartaa ma jiro dadka ra'yiga kala qaba ee danaynaya in la maqlo oo aaminsan in la mideeyo labada dhinac dadka ma dhageysanaysaan oo fursaddii ma siinaysaan maya walaal waxa u furan oo ta u furan waxa weeye nimanka ay leeyihiin waa lala midoobaya ee dowladda Soomaaliya ee maanta aynu ognahay nidaamka federalismka ee aanan ka mid kahay qaatay ayay u furan tahay deena u shaqo tagaan oo xagga aadaan hadday wax kaga helayaan
laakiin dadka halkan ku nool waa dad tashaday dowlado ay doortaan baa jira 5 madaxweynaha iska bedelay golayaal bay leeyihiin wakiilo oo ay dadku soo doortaan golayaal deegaan bay leeyihiin ay sidooda usoo doortaan dhaqaalahoodii iyo nabadgelyadoodu waa mid ku dhisan iyaga walaal cashuuraha ay dadkooda bixiyaan marka walaal ma yeelayno wax lagu cayaari karana maaha marka midnimadan uu haatan bilaabay in uu ka shaqeeyo maxaad ka leedihiin dee walaal midnimadu waa noocyo badan tahay midnimada jamhuuriyadda somaliland dadka ku nool baa laga shaqayn karaa qofku qoyskiisu midnimadiisa ka shaqayn karaa laakiin sovereignty-ga iyo dal ahaan dalkayaga in waddan kale lagu qasbo waxay ka dhigan tahay taa uu ka hadlayaa dowladda etoobiya ama dowladaha jaarka kenya jabuuti oo na idhahaa nala midooba noogama duwanaa midnimada uuna leeyahay walaal dowladda soomaaliya la midooba waa qof waddan iyo dowladnimo iyo nidaam dal dhan oo jira qof ku fakerayo walaal dal kalaan ku darayaa walaal noogama duwana taasina walaal waa sacabkaasoo datima ka soo baxeen oo dhici mayso kaasi waxa uu ahaa wasiir cabdinaasir cumar jaamac oo u waramayay wariyaha b b c da cabdifataax ibraahim cagayare